بسم الله الرحمن الرحيم. وحويان أقون وذاك UK يعني فتحية مانتو نوفمبر أي تاي توبنكيدي waxaan iskugu soo noqonaynaa bal suuqii crypto halkuu taagan yahay ayaan maanta bal yar falanqayni shakhsi ahaan af Soomaalina ku falanqayn intii karaankayga hadduu ilaahay noo roon yahay markii iskuulka ay dambeysay waxay ahayd bishii August tobankeedii bishii 8aad tobankeedii oo sanadkana sida sawirada ka arkaysay markaasi suuqu bitcoin-ku wuxuu joogay 23,948 waa halkii bitcoin sidaan hore iskugu sheegnayba dadku hal bitcoin iibsadaan dadka caadiga ah sida iyadoo kale waxay iibsadaan jab markii 100 meelood meel loo qaybiyo qayb ka mid oo kale amba 100 Guinea amba 200 ninba inta karaankiisa yuu gadan jiray marka halkii bitcoin waqtigaas wuxuu joogay 3,000 haddaa la eego dhibic hal bitcoin wuxuu joogay 2,300 haddaan kaloo si kale u dhigno dhibic hal waa 0.01 bitcoin wuxuu joogay $240 ku dhawaad ayuu joogay waqtigaas ta ku xigtana Ethereum bay ahayd halkii Ethereum 1,840 buu joogay u dhigata hadday dhibic hal Ethereum wuxuu joogay 184 0.1 bitcoin intaasuu joogay dhowr bilood dabadeed maanta halkuu taagan yahay waa kan sawirada waa inii soo diyaariyey maanta qorata bitcoin-ku 7 ayuu hoos u dhacay chartka 7dii shay ugu dambeysay adiga arkay haween halkaas uu joogay u dhaadhacay ilaa hoos u dhaadhacay maanta wuxuu joogaa 16,473 waxa u dhaxaysa ilaa iyo hal bitcoin waxa u dhaxaysa ilaa iyo 7,000 yaa u dhaxaysa dhibic hal 0.1 haddaad iibsanaysidna waxa u dhaxaysa ilaa 700 geni qofkii iibsanayena 200 iyo 40 geni ku dhawaad qofkii iibsanayay maanta waa 164 marka Ethereum-nana waxay joogtaa iyaduna hoos u sii dhaadhacday 1,100 aad buu dhaadhacday 1,190 iyo sida marka berigaana waxay joogtay 1,800 iyo xoogaa waxay ka dhigan tahay marka dadkii waqtiga iibsaday waxay khasaareen inta u dhaxaysa qofkii bitcoin iibsaday haddii iibsaday 100 geni ilaa 70 geni 230 haddii iibsaday waqtigaasi ilaa 70 geni iyo khasaaray kii iibsaday 180 Ethereum oo lacagta Ingiriiska dollar iibsaday maanta wuxuu khasaaray ilaa iyo isaguna 70 way gaaraysaa amba 60 iyo xoogaa iyo khasaaray dee crypto-guna waxa weyn waa wax
sida hoos u dhaca sare u kaca waqtigan waxaa lagu joogaa waqti dadkii hore wax u iibsaday sanadkii hore oo dhan badankoodu khasaare ku jiraan caadi ahaan waxaa dhaha qofku khasaare wuxuu ku jiraa waa ilaa intaad iibin haddaan maanta iibiyo qofka wuu khasaaray laakiin hadduu yidhaahdo rajaan ka qabaa rajadun iska ahayn mala awal ay tahay laakiin rajo aad qofkii uu si cilmiyeysan u baadhay oo oran karo warniyo bilow ku noqotay 25 kun haddana amba 250 kun noqotay oo wax faa'iiday way dhici kartaa laakiin waa inaan xasuusin noqoto crypto inuu khasaarahaasi u leeyahay qofkii ku jirana uu ogsan qofkii imika ku soo biiran waa inuu ogaado sida khasaaraha u dhaco iyo inaan laga hadlo umaha marka faa'iido lagu jiro amba faa'iido laga helo lismoodina faa'iido laga helo taa hadda xaka ku dhaafo arrintan maxay ku dhacday ay sidan khasaarahan weyn 7 cisho ugu dambeysay aad wax kasta u dhaceen haddaan eegno suuqa lagu iibiyo cryptoga amba exchange-ka lagu kala iibsado adduunka waxaa ugu weyn Binance Coinbase baa ku xiga FTX baa ku xiga OKX KuCoin saasay u kala leeyahay marka aduu ilaa 12 ugu sarreeyay waxaa dhacday FTX hadduu qofkii maanta crypto ku qoro Google uu ku macnaynaya wixii dhacay waxaa dhacay haddaan kuu soo koobo suuqa weyn FTX ninkii lahaa dadkii maareynayay waxay sameynayeen dadka lacag ugu jirto lacagtoodii caadi ahaan dowladdu hadday xakameynayso ilaan cryptoga lama xakameeyo dowladdu ma xakamayso laakiin hadday xakameynayso qofku wuxuu dowladdu waxay ilaalinaysaa xuquuqda qofka ku leh account inuu lacagtu gashaday uu beri ka heli karo badankeeda laakiin tan cryptoga ma xakamaysno marka waxaa dhacday qoladii FTX amba shirkadii iyo dadkii lahaa inay lacagtii ay u hayeen dadka ay iyaguna khamaar ay gelinayeen ay lacaga meelo kale ay gelinayeen dad kale amaahinayeen shirkado kale ay amaahinayeen iyagoo ka rajo qaba lacagtii ay inay u soo celiyaan dulsaarnana ay wax ka helaan laakiin nasiib darra waxaa dhacday arrintii ay doonayeen inay suurtageliyaan iyay ku khasaareen waxaana dhacday inay 8 bilyan oo lacagta dollarka 8 bilyan oo dollar ay la waayay amba ay ku khasaartay sidaa aawadeed 7 cisho ugu dambeysay 2 cisho ugu dambeysay dadkii waxay isku dayeen inay lacagihii FTX u yaalay inay dib uga qaataan dee iyagii badankoodu intii ugu horreysay markay qaadatay intii dambe lama hayso sidaa aawadeed waaba xidhayba suuqii mar hadday xidhay dee dadkii badankii way khasaareen intii kale iyaguna haysatay Bitcoin iyo Ethereum iyo cryptona dee khasaarahan bay arkeen waxay dhahaan bilow waxaan ilaa hoosta u dhacaysaa intaynan khasaaraha uuna eber noqon iska iibi marka dad badan baa iibinaya waxay gacanta ku hayeen shakhsi ahaan wixii yaraan haystay weli ma iibin waqti dheer aan ka fikirayay waana sugayaa waqti dheer ilaa dhowr sano waan sugi doonaa insha allah laakiin badankoodu dadku iibinayaan sidaa aawadeed markaad iibku uu bato dadka iibsanayna ay ka yaraadaan dadka iibinaya ka bato dee suuqi hoos u dhacaya taasaa maanta suuqa ka jirta dadkii dee waa dee ninkaa le waa ninkaa dhalinyarta 30 jir buu malaha dhalinyar 30 jir 8 bilyan yaa la leeyahay suuqa ka dhacday maanta insha allah bilaa karim intaasaan kusoo koobaya suuqii halkaasuu joogaa cryptoguna waa wax ay dadka baara amba dadka doonaya moodaya inay fahansan yihiin rajeynaya inay ugu
ودنبين كريبتو كا رجف يعني هاي دولار سيدا نقصون هذا هذا بقى سوقي واحد كستوي كعين دولار كو كعد دولار كو أتكاري لكن بدكي دولار كهيستي يعني أم بلعكها كلا هيستي يورو أم باوند هوس بالعكتودو أي وحي جونس السنة كي هورا يوحي ما أنت بيسوي كلا دوينتاي وي هوس بودعد waxaa la rajeynayaa doolarku inuu imika dowladdu ay aad ula tacaalayso oo interest rate-kii ay sare ka kordhisay sidaa waxay ka dhigan tahay dadkii lacaga haystay ee cryptoga gelinayay hadda waxay moodeen waxa ay dhici karta in wax uga faa'iido badanba inay bank dhigtaan ay boqolkiiba 30 ay ka helaan macaash oo dowladdu ay siiso halkii uu cryptogu qofku damaanadna haysan sidaana dee شقرة كل دعي كراسي سديد بقول كيلو 6% إن شاء الله ينو كل عسنا ولا يو بقول كيلو لبعضن سيدا سيدتك أودي العقد كشين كريتو أي حدا العقها بانك دقيق يعني أيوة بدن تنا دكتان مركا أنا هذا كسيدين سوق ما تحكى سجولا إن شاء الله بلا كريم وحبيعك تا مركا كلا تصون قلنا بشر دنبه ديسمبر amba January inuu kaco dadkan waxay u faa'iido tahay dadka imika crypto iibsaday maanta haday iibsadaan ay December amba January iibiyaan nasiibkooda waxa dhici karta inay ka faa'iideen wallahu a'lam billahi anta kala garan laakiin anagu sidaas baan u malaynaa waxana dhici karta inay kasii dhaadhacdo oo meesha maanta 16 ay joogto inay noqoto 8 kun amba wixii kasii والسلام عليكم.